Turkiga ayaa Soomaaliya waxa uu soo diraya ciidamo dheeraad ah oo loogu talagalay inay qayb ka qaataan sugidda amniga guud ee dhanka badda Soomaaliya, gaar ahaan goobaha laga qodayo dhanka shidaalka. Madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waxa uu helay xogo guud oo ku aadan in Ankara ay markan dareemi karto culays weyn oo ku aadan in wadamada qaarkii ay bilaabi karaan xaalado ku aadan arrimaha dhanka siyaasadda iyo in ay dhanka amniga culays ay ka saari karaan Soomaaliya, waa sida ilo wareedyo xaqiijiyeen. Madaxweyne Erdogan waxa uu tilmaamay in ciidankii Soomaaliya ee dhoolatuska Turkiga ka dhacay ka qayb qaatay ay ahaayeen ciidan bandhig wanaagsan bulshada u soo bandhigay, waxaana uu tilmaamay in xilligan la joogo Soomaaliya ay haysato ciidamo awood badan marka la eego ciidamadii hore, laguna kalsoonaan karo awood ahaan. Sidoo kalena dowladda Turkigu ay diyaar u tahay in ciidamadeeda gudaha Soomaaliya tegaya iyo kuwa joogaba inay si wadajir ah ula shaqeeyaan askartaasi. Ilo wareedyo kala duwan ayaa warbaahinta xulaasi waxay u sheegeen in madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Turkiga waa Rajab Tayyip Erdogan iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay wada hadleen, iyadoo ilaa haatan aanay la soo bandhigin waxyaabaha ay sida gaarka diiradda u saareen. Ha yeeshee, waxaa jira warar soo baxaya oo tilmaamaya in dhaqdhaqaaqyadaasi guud ay yihiin kuwo si guud iyo si gaar ahaaneed diiradda loo saarayo, maadaama dowladda dhexe federaalka Soomaaliya ay wajahayso culays la xiriira dhanka siyaasadda, gaar ahaan arrimaha dhanka doorashooyinka. Turkiga waxa uu kol hore sheegay inuu ka madax bannaan yahay arrimaha isqabqabsiga siyaasadeed ee mas'uuliyiinta dalka soo martay iyo xubnaha hadda jooga xafiiska u dhexeeya ee ku saabsan arrimaha dhanka doorashooyinka. Laakiin arrimaha dhanka dhaqaalaha iyo amniga, xukuumadda Ankara dhigeeda Muqdisho aanay ku daawan karin dhibaatooyin xooggan haddii dhankaas uu ka yimaado. Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo la hadlay madaxda dhowr dal oo bariga dhexe xaaladooda uu ku soo hadal qaaday ayaa waxa uu dhanka kale u sheegay in xilligan aanay fududeen arrimaha guud ee siyaasadeed ee la xiriira guud ahaan dhaqdhaqaaqyada guud ee ka socda dhanka iyo geeska Afrika. Waxa uu tilmaamay in dowladdiisu ay ku dhiiratay in shidaal ay ka soo saarto gudaha Soomaaliya, iyadoo maraakiib casri ah muddo dhowr biloodna ku soo jiray dhanka iyo badda u dhexeysa Soomaaliya iyo Turkiga. Ugu dambeyn Muqdisho ay gaareen, laga sii ambabixiyey, markaana ay faraha la galeen howsha qodista shidaalka Soomaaliya. Marxaladda xigta waxay noqon doontaa in shidaalkaasi marka la soo saaro la ogaado, dabadeedna la sifeeyo. Marka la sifeeyo kadibna waxyaabaha nacfiga ee ka soo baxa dib loogu soo celiyo dhanka Soomaaliya. Waxaa socda qorshe weyn oo ah sababta ka dambeysa in ciidamadan Turkiga gudaha Soomaaliya loo soo diro. Sababtaas waxay ilo kala duwan ku sheegeen in dowladaha Soomaaliya iyo Turkigu ay ku ballameen in la sameeyo marin xeebeed muhiim ah oo loogu talagalay in ay degaan xubnaha shaqaalaha ah iyo sidoo kale gaadiidka muhiimka u ah dhaqdhaqaaqooda shidaal qodista Soomaaliya. Dowladda Turkiga waxay si guud iyo si gaar ahaaneedba u sheegtay in xilliga la joogo tababarka iyo awoodda ciidan ay siinayso dhanka Soomaaliya in muhiimad gaar ah ay u leedahay. Sidaas awgeedna xukuumadda Ankara ay bilowday dhaqdhaqaaqyo guud oo arrimahaasi la xiriira. Saraakiil iyo mas'uuliyiin kala duwan ayaa durba bilaabay inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo guud oo arrimahaasi la xiriira, taas oo keentay in saraakiishii mas'uuliyiintuba ay bilaabaan sidii ay u raadi lahaayeen xogaha iyo macluumaadka guud arrintaasi ku gadaaman. Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo dhowr jeer la hadlay baarlamaanka dalkiisa waxa uu sheegay in Soomaaliya fursado waaweyn ay ka bannaan yihiin marka la eego soo saarka shidaalka iyo maalgashiga. Sidaas awgeedna Ankara ay mar walba gacan siinayso dhanka Soomaaliya oo xaaladaha adag ee dhibaatooyinka ka soo baxaya. Khudbad saacado ka hor uu jeediyey madaxweyne Erdogan kuna shaaciyay arrinta guud ee dhanka shidaalka Soomaaliya, wuxuu ku sheegay in xilligan la joogo Soomaalidu ay rabaan meel walba ay joogaan in kheyraadkooda dabiiciga ay ka faa'iideystaan, taasoo keenaysa in dhibaatooyinka dhanka dhaqaalaha iyo xaaladaha adag looga gudbi karo sidii dhaqaalahaas looga faa'iideysan lahaa. Laakiin caqabadda ugu weyn ee Soomaalida ka dhex jirta waa dhanka siyaasadda, maadaama xubnaha xilka haya iyo kuwa xildoonkaba inta badan marka la gaaro muddo xileedka dowladeed ee dhammaada in ay bilowdaan rabshado isqabqabsi. Laakiin waxaa jira talooyin dhowr ah oo dowladda Turkigu ay soo jeedisay. Ankara waxay diyaarinaysaa qorshe weyn oo haddii u suuragal weyn ka dhigi karta
waa in dhanka badda amniga ilaaliso sidoo kalena ay fududeyso isu socodka meelaha kala duwan ee muhiimka u ah dhanka soo saarka kheyraadka si looga maarmo ku tiirsanaanta dhanka siyaasadda. wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigta warbaahinta Xuraansi ku daawo waad ku mahadsantahay daawashada iyo ku xirnaanta janaalkayga.